السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kasta joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. Nigeria ayaa aflagaadeeyay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ka oo lagu xukumay dil. maxkamadda shariicada islaamka ee gobolka Kano ee waqooyiga dalkaasi waxay shalay dil toogasho ah ku xukuntay heesaa lagu magacaabay Yaxya Aaminu Shariif kaasi oo lagu helay inuu nabigeena Maxamed calayhi salaam uu ku aflagaadeeyay hees uu eedeysanahaasi bishii Maars ee uu soo dhigay bartiisa WhatsApp-ka. afayeenka maxkamadda ayaa sheegay inuu eedeysanaha raacfaan ka qaadan karo xukunkaasi muddo 3 maalmood gudahood ah. bilowgii sanadkan dibadbaxayaal careysan ayaa waxay dab qabadsiiyeen guriga qoyska eedeysanaha iyadoo oo falkaasi looga soo horjeeday heesta aflagaadada ee uu qaaday. dhinaca kale maxkamadda shariicada islaamka ee gobolka Kano ee waqooyiga Nigeria waxay xukun 10 sano ah ku riday nin lagu magacaabo Cumar Faaruq kaasi oo isaguna geystay falal lid ku ah islaamka. shirkadda TikTok ayaa qalab lagu baro COVID-19 ugu deeqday Ethiopia. shirkadda TikTok oo kamid ah warbaahinta bulshada ee sida weyn loo xiiseeyo ayaa waxay markii ugu horeysay ugu deeqday dawladda Ethiopia qalabka lagu baro coronavirus. shirkadaas oo laga leeyahay Shiinaha waxay 100,000 oo qalabka lagu baro fayraska corona ee COVID-19 testing kits ku wareejisay dawladda Ethiopia munaasabad shalay ka dhacday magaalada Addis Ababa. qalabkaasi oo lagu qiimeeyay 1.3 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa la sheegay in dawladda Ethiopia ay ka taageeri doonaan howlgallada lagu baarayo dadka uu ku dhaco cudurka laayaanka ah ee COVID-19. danjiraha Shiinaha u jooga Ethiopia Tanjian ayaa waxa uu qalabka caafimaadka ku wareejiyay wasiirka caafimaadka Ethiopia haweeneyda lagu magacaabo Dr. Liya Tedese. danjiraha waxa uu sheegay in dawladda iyo dalka Shiinaha ay ka go'an tahay in dadka Ethiopia ay ka taageeraan kaalmooyinka daruuriga ee looga hortagayo faafista COVID-19. dhinaca kale wasiirka caafimaadka Ethiopia waxa ay sheegtay in kaalmadaasi xoojin doonto awoodda lagu baarayo dadka uu ku dhaco fayraska corona. Ethiopia waxa farabaan ku haya fayraska corona iyadoo la xaqiijiyay in 23,591 qof laga helay xanuunkaasi iyadoo 10,411 qofna ay bogsadeen halka 420 kalena ay u geeriyoodeen xanuunkaasi. shirkadda TikTok oo ay milkiyadeedu leedahay shirkadda teknolojiyadda internetka ee ByteDance waxay bixisaa adeega baraha bulshada ee la isku weydaarsado muuqaalada video sharing social network. shirkadda TikTok waxa aasaasay khabiir lagu magacaabo Jiang Yiming sanadkii 2012. tirada guud ee macaamiisha ku xiran isticmaalka shirkadda TikTok waxay gaarayaan 800 milyan oo qof ku kala nool dalalka caalamka iyadoo 10 wadan ee ugu isticmaalka badan caalamku ay kala yihiin dalka India waxa macaamiisha shirkadaasi TikTok ay gaarayaan 119.3 milyan oo qof. waddanka Mareykanka kaalinta labaad ku jira waxa macaamiisha shirkadaasi ay gaarayaan 39.6 milyan oo qof. kaalinta saddexaad waxa ku jira dalka Turkiga oo 28 milyan 400,000 ay macaamiil leeyihiin shirkadda TikTok. waddanka Russia ayaa kaalinta afraad ku jira iyadoo 24.3 milyan oo macaamiil ay xiriir leeyihiin ama ay isticmaalaan aaladaas TikTok. waddanka shanaad waa Mexico oo ay macaamiisha TikTok isticmaalo ay gaarayaan 19.7 milyan oo qof. kaalinta lixaad waxaa ku jira waddanka Brazil
taasi oo macaamiisha isticmaal shirkadaasi ay gaarayaan 18.4 milyan oo ruux. wadanka Bakistan isna oo ku jira kaalinta toddobaad waxaa macaamiisha shirkadda TikTok ay gaarayaan 11.8 milyan oo qof. wadanka Sacuudiga oo kaalinteeda ku jirana waxaa macaamiisha ay gaarayaan 9.7 milyan oo ruux. dalka Faransiiska ayaa kaalinta sagaalaad ku jira iyadoo macaamiisha isticmaasha shirkadda TikTok ay gaarayaan 9.1 milyan oo macaamiil. wadanka Jarmalka ayaa ugu dambeeya kaalinta tobnaad ku jira iyadoo macaamiisha dalkaasi ay isticmaalaan shirkadda TikTok ama aaladaas baraha bulshada ay gaarayaan 8.8 milyan. daawadayaal xubniyaada ku talagal waa inta waxaad kala socoteen Daalacan Media. odayaal ku soo dhawaada Daalacan Media oo aan idinku soo bandhigi doono warar, warbixino, dhacdooyin, sheekooyin iyo wacdaraha kale ee la yaabka caalamka.